Fanaanka qadarkeeyow ayaa waxa uu wajahayaa markan xaalad adag kadib markii muddo 3 maalin ah uu ku jiro xabsiga dhexe ee Itoobiya. Haddaba maxay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ka dambeeyay qadarkeeyow? Waxa aynu idin soo gudbi doonaa 3 siyaabood oo la aaminsan yahay in qadarkeeyow uu xabsiga ugu jiro. Maxay tahay kaalintaada ku aadan adigan daawadaha ah inaad xabsiga ka sii daydo walaalka qadarkeeyow marna ah fanaan Soomaaliyeed. Sida aan wada ogsoonahay Itoobiya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxaydo cadaawad soo jireen ah walow uu baryihii dambe dawladda farmaajo aad ugu sii dhawaaneysay hase yeeshee si walbaba cadaawadda Itoobiya iyo Soomaaliya ee soo jireenta ah ayaa waxa ay tahay mid aan sidaasi ku tarmi doonin. Haddaba arrintan ayaa waxa ay tahay mid naxdin leh waxaynu rabnaa inaan idinla wadaagno xogo iyo macluumaad ku saabsan kuwaas oo aynu ka diyaarihaynay muddadii 2 maalin ahaa uu xabsiga dhexe ku xirnaa qadarkeeyow. Waxa aynu sameynay xiriiro kala duwan inaga oo raadinayno xogta iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku saleysan fanaankan. Haddaba inta aan u galin barnaamijkan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee channelkeena fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. Sidaan wada ogsoonahay waxa fanaanka Qadar Ibrahim Keeyow uu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee Itoobiya waxaana sidaasi bartiisa Facebook ku shaaciyay Cabdi Dhaanto ah fanaan ay si dhow isugu dhow yihiin qadarkeeyow. Hase yeeshee arrintaa inta badan Soomaalidu ay aad wada maqleen ayaa waxaa jira haatan inaan wali waxba laga qaban uu fanaanku xabsiga dhexdiisa ku dhaxaydo. Haddaba intaan idin soo bandhigin kaalintaada ku aadan adigan daawadaha ah iyo sidoo kale dawladda Soomaaliyeed oo aan rabo inaan baaq uga diro halkan waxaan rabaa inaan idinla wadaago xogaha iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee qadarkeeyow loo haysto kaasoo ugu xiran yahay xabsiga dhexe ee Itoobiya. Sidaan wada ogsoonahay fanaankan qadarkeeyow ayaa waxa uu yahay fanaan hobal ah waxa uuna sameeyay heeso badan oo shacab baxay kuwaasoo qabsaday dhammaan baraha bulshada waxaana jirto in heesihiisu ay gaareen dhammaan qaaradda Afrika. Sidaan wada ogsoonahay Itoobiya Soomaaliya iyo Suudaan way isku muusiga dhow yihiin marka muusiga laga sheekeynayo waxa la yiraahdaa Soomaaliya iyo Suudaan iyo Itoobiya waxa ay garaacdaan 7 xarig. Sidaas waxa ay keenaysaa haddii xitaa luqaduhu noo kala duwan yihiin in dhawaqa Itoobiya ama Suudaan muusigooda marka aad maqasho aad ku raaxaysan karto ama aad dhageysan karto heesahooda. Sidaas darteed waxay bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada Itoobiyaanka ah iyo waliba sidoo kale bulshada aynu walaalaha nahay ee Suudaan inta badan waxa ay ka siman yihiin dhageysiga heesaha fanaaninta ka soo jeeda saddexdaas wadan oo idilba. Haddaba arrintaasi ayaa waxa ay keentay in heeso badan uu qaado qadarkeeyow laga dhageysto wadanka Itoobiya. Waxaa jirtay hees aan baxda uu qaado fanaanka qadarkeeyow taasoo inta badan bulshada Itoobiyaanka aad u gaartay waxaana heestaas iska soo duubay gabdho badan Itoobiyaan ah. Haddaba qadarkeeyow ayaa waxa uu soo duubay muuqaal isagoo ku sheegay dadka Itoobiyaanka ah ay isaga ka dambeeyaan ayna fankiisa aaminsan yihiin una maanta guul ka gaaray. hase yeeshee muuqaalkaas ayaa waxa baraha bulshada Itoobiyaanku ay si weyn uga falceliyeen arrintaasi. Sidoo kale waxaa jira fanaan Itoobiyaan ah hees uu leeyahay inuu qadarkeeyow koobiyay muusigeeda. Heestaas ayaa waxa ay hees aad u macaan muusigeedu. Haddaba sidaan hore in kugu sheegnay Itoobiya iyo Soomaaliya inta badan muusiga heesahoodu waa ay siman yihiin. Sidaas darteed qadarkeeyow ayaa waxa uu bedelay erayadii Itoobiyaanka ahayd isagoo erayo Soomaaliya ku qaadaya muusigii ayaa waxa uu iska soo duubay hees noocaas waxa ayna u shaac baxday si weyn waxa ayna noqotay hees inta badan hirgashay. waxaana la sheegay in bulshadii Itoobiyaanka ahay isla heestii ay dhageysan jireen ee ahayd Itoobiyaanka ay naceen ay bedelkeedii ku bedesheen heesta qadarkeeyow taas oo dhashay saameyn balaaran. wax ayna dadka Itoobiyaanka ay cusuriyiinta ahay si weyn uga soo horjeesteen falkii qadarkeeyow iyagoo qaarkood nacaynayay qaar kalena ay dhahayeen kan ayaaba kaga wanaagsan kii dhaladka ahay ee wadankeena ahay. inagu waxaan dhageysanaynaa waa muusiga waxa ayna codka macaan ee qadarkeeyow aad ula dhaceen dadka Itoobiyaanka ah iyagoo yiraaday alla wiilkani muxuu Itoobiya kaga dhalan waayay. waxaana dad fara badan oo Itoobiyaan ay baraha bulshada si weyn uga taageereen qadarkeeyow ayaana arrintaas shacbiyad balaaran ku helay. dhanka kale waxa ka soo gaaray colaad fara badan maadaama dad cusuriyiin oo Itoobiya u dhashay ay si kale uga falceliyeen iyagoo yiraaday heesaheena in la dhaco waa qalad waxa ayna garab istaageen fanaanka Itoobiyaanka ah. haddaba kiiskaasi ayaa si weyn u cuslaaday. sidoo kale sidaan wada ogsoonahay qadarkeeyow familkiisa ayaa waxa ay ku nool yihiin Itoobiya waxa uu fanaanku marar badan booqdaa wadanka Itoobiya. sidaan wada ogsoonahay inta badan qadarkeeyow ayaa waxa uu sheegay Itoobiya inuu tago marar badan ayuuna ku laablaabtay. sidaas darteed ayaana shirqool loogu dhigay si fanaanka qadarkeeyow looga faa'iideysto markuu halkaas imaado ayaa waxa ay sameeyeen qolyahan Itoobiyaanka inay ku qabteen airportka Addis Ababa. haddaba arrintan ayaa waxa ay noqotay mid naxdin leh ilaa iyo haddana bulshada Soomaaliyeed si weyn kagama aysan falcelin waxaana dareemaysaa arrintan in laga gaabiyay maxaa yeelay fanaan Soomaaliyeed ee caan ah ee bulshada Soomaali ku ah oo ay xirteen wadan cadawgeena ah oo aan aaminsanahay Itoobiya naga dhaxayda cadaawad soo jireen ah ayaa haddana dadka waxaad moodaa inay arrintaasi ka gaabsadeen waxaadna moodaa
in aysan baraha bulshada arrintaasi saameyn ballaaran ku yeelan maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed waxa ay si weyn uga dhidhin jireen qof Soomaaliya haddii Itoobiya xirato sidaan wada ogsoonahay qalbi dhagax oo ahay nin caan ahayna halgamaa Soomaaliyeed kana tirsan ciidankii militariga ee dawladda dhexe ee Siyaad Barre ayaa waxa ay dawladda farmaajo oo haatan talida u dhiibeen dawladda Itoobiya arrintaas ayaana si weyn waxa baraha bulshada uga falceliyay dadkii Soomaaliyeed haddaba maxay tahay sababta looga aaminsan yahay qadarkeeyo uu ah muwaadin Soomaaliyeed inuu ku xirnaado xabsi ku yaala waddanka Itoobiya arrintaasina ay tahay mid dadka dhan wada ogsoon waxaadna moodaa in falcelinta bulshada Soomaaliyeed ay arrintaasi ka gaabsatay waxaan bulshada idin leeyahay qadarkeeyo waxaad u qaban kartaan in aad qof walba idin kamid ah xogtan ay share gareyso barnaamijkan aad share gareedaan meel walba aad la wadaagtaan maxaa yeelay ninkan dadka ku dhigan waa shacab weynaha Itoobiya waxay leeyihiin heesahani ayuu xadaa iyaga ayaana dawladda ku kiciyay waxaana dawladda cadays ku saareen in fanaankan la xiro haddaba shacab weynaha Soomaaliyeed waxa la idinka rabaa idinkuna inaad dawladdiina cadays ku saartaan sidii loo sii deyn lahaa qadarkeeyo oo ay labada dawladi kaga xaajoon lahaayeen iyadoo arrintaasi wax maxkamad ah oo Itoobiyana aan la gelin sidaan wada ogsoonahay fanaanka waxa loo sii wadaa baa leeyahay in la geeyo maxkamad Itoobiya dhexdeeda lagu maxkamadeeyo isagoo ah muwaadin Soomaaliyeed haddaba arrintaasi naxdinta leh run ahaantii waxaan rajeynayaa intiina damiir kale in aad ka kacdoomi doontaan intiina dhawaaq leh in aad mataqaana ka kici doontaan sidoo kale dawladda farmaajo ama dawladda ra'iisul wasaare Khayre waxaan ku boorinayaa maadaama ay sheegeen inay yihiin dawladda dhalinyarada waxaan leeyahay qadarkeeyo waa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo fanaan ah waa nin hobal ah oo inta badan Soomaalidu heesiisa aad u xiiseeyo waxa ayna saameyntiisu gaartaba geeska Afrika maxaa yeelay haddii heesa lagu haysto dartiis lagu xirayo Itoobiya waxay cadeynaysaa heerka uu la egyahay awoodiisa faneed waxaan leeyahay waa tiir u soo baxay fankii Soomaaliya waa mid kamid ah kuwa bedeli karo hubalada waabri oo ah nin talent leh codkiisuna uu yahay mid hiba leh oo aan aaminsanahay haddii fursad la siiyo oo tiyaatarkii qaranka dib loo soo agaasimo inuu yahay mid kamid ah kuwa soo nooleyn kara fankii hore ee Soomaaliyeed haddaba shakhsiga noocaas ah ee qiimaha intaas weyn ku fadhiyo in dal shisheeye oo cadow ah oo waliba deris nal ah uu xiran yahay dabadeedna aysan ka hadlin dawladda Soomaaliyeed waa arrin runtii naxdin leh waxaan kula talinayaa wasaaradda arrimaha fanka iyo sidoo kale dhalinyarada ku howlan inay arrintaani faragelin ku sameeyaan oo ay madaxda ugu sareyso ee waddanka arrintan u gudbiyaan sidoo kale adigan dhageysta ah waxaan ka codsanayaa inaad fariinta share gareedo si aad walaalka qadarkeeyo u garab istaagtid dadka qaar ayaa waxay dhahan ma xiisayno heesaha haddii aadan xitaa heesaha xiisayn waa walaal Soomaaliyeed waxa uu xiran yahay waddan shisheeye oo cadow nagu ah haddaba si uu xorriyadiisa u helo waa inaad garab istaagtaa oo aad arrintan ka dhiidhidaa oo aad muujidaan sida aad mataqaana uga xuntihiin in qof Soomaali ah dhibaato loogu geysto waddan shisheeye waana aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad dhiig leh waana aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad firfircoon oo aan ogolayn in qof Soomaaliyeed dhibaato loogu geysto waddan shisheeye waxaana cadeyn midaas noogu filan sidii aad u garab istaagteen walaalkeen qalbi dhagax oo maalintii la xiray ilaa iyo maalintii laga soo diinayay aad u garab istaagsaneedeen oo aad ka dhidhisayn isku soo wada dib waxaan gabi ahaan kugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed arrintaas u kacaan sidoo kale fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinta ayaan laga aamusin fanaan walba oo Soomaaliyeed meesha aad ku sugan tahay waa inaad arrinta xogteeda soo bandhigtaa haddii aad ka cabsanayso inaad Itoobiya berri lagugu xiro markii aad tagto waxaad ogaataa in qadarkeeyo maanta sidoo xunaya aadna lagu xiri karo ha cabsan maanta hadal si berri adigana lagaaga cabsado la yiraahdo shalay qadar markii aan xirnay wixii nagu dhacay baa nagu dhacay maanta oo hadda kadib Itoobiya ay kaga foojignaato inay qof caan ah ama qof Soomaaliyeed oo la yaqaano si gardarro ah oo bilaa maxkamad ah ay xorriyadiisa uga qaadaan iyagoo wax weyn oo cadeyn rasmi ah aan ku haysan haddaba qadarkeeyo ayaa xaaladiisu aad u xun tahay wuxuuna fanaanka Cabdi Dhaante baraha bulshada ku soo qoray in dawladda Soomaaliyeed arrintan ay faragelido oo ay arrintan xildhibaanada iyo sidoo kale taqraabada uu ka dhashay ay arrintan soo dhax galaan waxa uu sheegay in xildhibaanada ay isku beeshay yihiin qadarkeeyo ay arrintan soo farageliyaan haseeshee waxaan leenahay anagu Soomaali weyn oo idil arrintan ha soo farageliyaan hana laga dhiidhiyo hana laga xumaado isku soo wada duub halka aad warbixintani kala socotaan waa channelka Ardor Media haddaba si ayna ku dhaafin xogaha iyo macluumaadka aan baahino haddii ay tahay boqoshadaad ugu horeeyay ee channelkeena fadlan subscribe saaro si ayna ku dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan